بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوداش إذا قدرنتي قيمة مدن ومركزة والدنيا اللي جلس عن قادان هل كان هو سوماليسات أو ذكرسوا هذا يا استوديها مينيسوتا كارهان مجال مينيابوليس سيدي أنا هربا برامجي هرا كسو قادرين ماته وحا نلتشوجه وفود سرع أو خطر سن معمول قبلات كلا مع بحي أو ذا الستيت أوف سوماليا ورهانتي لديسي سنة كهرة bishii March 2020 laguna dhisay qurbaha hadaba madaxweynaha maamul goboleedka Awdal State iyo qaar kamid ah xafiiskiisa iyo golaha wasiiradiisa oo haatan booqasho ku soo dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota oo ka qayb galay xafladii sanad guurada koowaad ee ugu dabaaldegayeen asaaskii ama wadalashadii maamul goboleedka Awdal State ayaa haatan booqanay Minneapolis iyagoo maanta nagu soo booqday studio-hayga Soomaalisaad ee Minnesota waxaan leeyahay marka hore wasiir iyo gudoomiyaha xafiiska madaxtooyada ku soo dhawaada الله يسلمك وأنا أردون هذا وما صنت وزير هذا كوريو قرب كي قعنت بدحي وحفرية وزير كوزارة وحبرشة إمام القبلات كأودل ستيت مهدي ساق سلوا كلنا وح قعنت إذا مدي كم مقطع وقدومية حفيز كم بدحتوي ذا إمام القبلات كأودل ستيت سليمان دوكسي وحنا زي مرة بتسولوا هذا أردون هذا وأنا ما صنت حدي أن كوريو ساشي كورسا madaxweynihii maamul goboleedka Awdal State wufuud fara badan baa timid gobolkan Minnesota oo ka qayb galay xafladii sanad guuradii koowaad waa maxay sababta madaxweynaha maadaama wasiiro badan ay halka joogaan ama dad kale oo maamul joogaan maxaa keenay sababta sanadkan inuu madaxweynuhu Minnesota yimaado bismillahir rahmaanir rahiim horta marka hore waxaan mahad u celinayaa meediyaha Soomaalida sida Soomaalisaad iyo Somali Media fursadan ay siiyeen in aan ka cabiro waxa ay tahay Awdal State iyo in aan dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaanba gaarsiino message-ka iyo fariinta ay xambaarsan tahay Awdal State horta sidoo ku dhiftay wariyuhu waxa la aasaasay Awdal State oo qurbaha lagaga dhawaaqay sanadkii 2011 magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa ahayd halkii ugu horeysay lagaga dhawaaqay annaguna haddaan nahay reer Mareykan waxaanu ku dhawaaqnay April 2011 ama 2011 taasoo Soomaali weyn guud ahaan ay nagu sharfeen oo ka soo qayb galeen annaguna aan ku casuunay sanad baa ka soo wareegay maanta marka waxaan maanta u dabaaldegaynaa habeen hore sanad guuradii koowaad ee aasaaskii Awdal State waxaanu ku casuunay madaxweynaha Awdal State garyaqaan Rashiid oo Nuur Xirsi oo ka soo laabtay safar dheer oo shaqo uu ugu tagay Soomaaliya isla markaana uu soo maray wadamo ka tirsan geeska Afrika sida Kenya iyo Ethiopia halkaasuu aad ugu koorgalayay xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan wadamadaasi aan jaarka nahay iyo isagoo u koorgalaya una dhawaanayay halka ay degan yihiin dadka aanu matalayno ee aanu u hadlayno aanu noqonay looyarada ama aanu noqonay qareenka marka xafladiina waxay u dhacday si aad iyo aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota waxaan u soo celinaynaa mahad aan la koobi kareynin sida Soomaalinimada leh ee ay isu kahay garab taageen mar walbana ay noo garab taagan yihiin annaguna waxaan diyaar u nahay inaanu Soomaalinimadii aan soo celino oo Soomaaliya mar labaad ay mi soo wada fadhiistay gacmaha haysa saaran insha Allah wasiir taa waynu soo noqon doonaa Soomaalida sidii loo soo celin lahaa iyo kulay maadaama taga sarana ka sidoo dhinaca waxbarashada aanu noqdo gudoomiyaha xafiiska madaxtooyada mudane gudoomiye Salebaan waxaad tahay gudoomiyaha xafiiska madaxtooyada oo xafiiska madaxweynaha adiga xukuma maamulkiisa socod fara badan oo soo gasheen intiina madaxweynaha waa la socotay meel badan oo Yurub ka mid ah martaan Canada iyo Mareykan waa joogtaan hadda waa maxay sababta ugu badan safarkiina idinka adiga iyo madaxweynuhu iyo wufuudda kale la socota baad wareegaysa horta aan mahad u celiyo stuudiyaha Soomaalisaad iyo meediyaha Soomaaliyeedba fursadan qaaliga ee nasiiseen waa fursad dahabiya mahad gaar ahaaneed baan dhamaantiin celinayaa iyo sida fiican loo soo dhaweysay maanta waa runta socdaalba madaxweynuhu ku gaaray Africa East Africa gaar ahaan wadanada Kenya iyo wadankeena Soomaaliya iyo Ethiopia buu gaaray horta anu lama socon ma raacin
socdaallana wuu ku tagaa ingiriiska wuu soo maray hadda waa naga halkan nimid socdaalkiisa East Africa ahaa sidoo isaguba sheegay wuxuu ahaa in aan dowladdii ama dadkii Soomaaliyeed aan wargelino in ay Awdal State tahay gobol maamul goboleed raba in uu mustaqbalka dadkooga iyo dalkoogaba gacanta ku qaato isla markaana ay ka qayb galaan dowladda federaalka ah wuxuu ahaa socdaal muujinaya in ay reer Awdal safka hore kaga jiraan soo nooleynta Soomaalinimadii hore runtii taasina waa uu soo cadeeyay madaxweynuhu waxa raacay wasiirka khaarijiga oo ilaa hadda ku maqan hadda wuxuu joogaa Ethiopia wali xamarku ma noqon waxaanay taasi muujinteeda ka cadaanaha Soomaali weyn oo waqti walba xasuusan tiyo 20 sanadood in ka badan burbur aan ku jirnay iyo inagoo isdilayna ay noqotay dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee xamar ka dhaadhacay iyagoo midigtana ku sita calankii Soomaaliyeed kii Awdal bidixdana ku sita calankii Awdal taasina waxay muujinaysay in reer Awdal sidii weligoodba lagu yaqaanay ay yihiin dad horseedka Soomaaliyeed safka hore kaga jira isla markaa muujinayna in ay diyaar u yihiin in maamulka guud ahaaneed gacanta laga rido oo iyagu isku tashadaan ay noqdaan kuwii dadkooga iyo dalkooga ba maamulayay runtii sida aan anagu qarsanahayna waxa weeye Soomaalidu way naga xumaatay 20 sano u dambeeyay dhulkeenu inagu filan yahay balaad iyo khayraadka ku jiraba way nagu filan yihiin waxa qura in dhex yaala ayna ku heshiimeeyay waa maamul waxaan anagu qarsanahay hadii aan reer Awdal nahay in maamul sare oo federaal oo daacad ku dhisan aynu samaysano gobol walbana loo daayo xukunkooda hoos ahaaneed aan inagu gudaheena tartano keena leeca aan sare u soo qaadno oo inay noqon inaan isku layno maamul inuu gobol u taliyo waanu diidanahay inay beelbeel u taliso waanu diidanahay waxa waqti walba hore iyo dibba qalbigaygu ku jira hadii aan reer Awdal nahay in ay tahay in aan wax wada qabsan karo laakiin aan diidanahay inay beelbeesha kale jeebka ku qaadato wasiir aad baad maadsantahay madaxweyne gudoomiye wasiir hadii aan soo noqono soo daadegno arrimaha Awdal State of Somalia waa maamul goboleed hadda dadka Soomaalida ay wada yaqaanaan intooda badan ee maqashay Awdal State ilaa 3 sano 2 sano soo dambeysay waa maxay sababta xilligan idinku kaliftay maadaama tii reer Awdal xilligii 1990kiina dowladda federaalka Soomaaliya markay meesha ka baxday dowladda dhexe aad ka mid ahaydeen dadkii iyagu saxeexay oo waliba shirar gaar ah lagu qabtay magaalada Booramo caasimada gobolka sidaan filayo haddana khaldaneen saxeexdeen in dadka reer waqooyiga ay soo yimaadaan aayahooda ka tashadaan oo ay Soomaalintooda kala ka go'aan maadaama aad ka mid ahaydeen maxaa xilligan kalifay muddada 20 sano ka bacdi waad mahadsantahay horta waa su'aal aad wanaagsan weey horta waxa weeye walaal waxaan ku sheegayaa arintan laga dhawaajiyo had iyo jeer ee odhanaysa dawlad wadaaga ay ahayd oo dadkoo dhan raali ka ahaayeen horta arin jirta maaha dhinaca Soomaaliland yani markan ka hadla dadka reer Awdal waxay ahaayeen dad daacad u ahaa dawladdii federaalka ee hore jirtay ba daacad u ahaayeen markan waa la qabsaday marka dawladda siyaad bar markay dhacday dadkan rabitaankooga ma ahayn in ay wax la qaybsadaan ama cid kale siyaadadooda ka qaadato laakiin waa lagu soo duulay waa la qabsaday caruurtoodii iyo haweenkoodii waa la laayay waxay ahayd wax loo dhigtayd garaynaya dadkan way ku qasbanaayeen waa 90kii markaas wax kasta oo la yiraahdo way ku qasbanaayeen oo wax weyn xoog baa lagu qabsaday marka nin xoog lagu haystana wixii la yiraahdo buu yeeliday marka horta dawladdan la yiraahdo Soomaaliland dawlad sax ku timiday ayay ahayd mid ku timiday rabitaanka shacbiga reer Awdal ma ahayn haba saahate
waxa intaa dheeraaday waayo qofka mar haddii la qabsado waxa weeyaan wixii loo gartuun baa la siin waxa weeye shacbiga reer awdal tira ahaan shacab ka yar ma aha shacbada dariska hina Soomaaliland ee beesha dhexe qaasatan beesha dhexe qofka marka la qabsado at least waxa weeyaan waxa la eega cadaalad baa la eega waxa luntay wixii loo jiray cadaalad completely inta ay jirtay waxa lagu sheegay Soomaaliland wax cadaalad la yiraahdo ka jiray dhulka Awdal State la yiraahdo ma jirin means maalintii la qabsaday 1991kii ilaa iyo maantada aan joogno dadku waxa weeyaan waa dad cabursan weey waa dad aan siyaadadooda waxay doonayaan xataa aniga president sanadka anagu aan jirnay Awdal State jirto ayaa waxay dareemeen at least xurriyad alqawl ay yaani waxay doonaan ku hadli karaan dadku hadli soo fikradooda soo gudbin karaan ay hadli karaan laakiin intii ka horeysay waxay ahaayeen dad ku jira qafis sanduuq box bay ku jireen qof ka hadla xabsiga la dhigay marka asaaska horta asalka bas ku timiday dawladda Soomaaliland saasay rabitaanka shacbiga ma ahayn ee waxay ahayd dad la qabsaday kadibna la dictate gareeyay oo sidii la rabo maartay laga yeelay su'aasha aad weydiisatay maxay u iman weyday intii horta way jirtay hore way jirtay oo waxa jiray urur SDA la yiraahdo Awdal State wa SDA oo noqotay Awdal State okay dadkan wada ee bilaabay dhalinyaradiina waa dad xambaarsanaa oo fikradii SDA ayuu baa soo kiciyay ba si jadiidiyeen waxa kale ee intaasi dheer waxa weeyaan waxa laga fikiray Soomaalinimadii sidee ku soo noqon kartaa ummadda Soomaaliyeed sidee baa la isugu soo celin karaa waxay noqonaysaa in laga bilaabo aasaaska in bal marka hore gobol walba oo Soomaalida kamid ah gobolada Soomaalida inuu bal isagu dib isku noqdo soo samaysto dawlad gaar kadibna la isugu yimaado federal waqtigan maanta joogno in wax weyn dibka ugu weyn wuxuu ka tagay wax weeyaan waa qabiil wax weyn qabiil raba inuu adoonsado taasina wax ma aha xataa diinteenu sheegaysa ma qofku waa inuu xaqiisa helo weey si dadkan hadaba xaqooga u helaan ummadii Soomaaliyeed gobolba wuxuu yeeshay dawlad goboleed mesela haddaan ka soo qaado Awdal State ama dhulka gobolada Awdal la yiraahdo calan u gaar ma lahayn calan ay samaysteen niman gaar ah oo aan Soomaaliba ahayn baasanka laga geliyo xataa rag dad lagu laayay maxaad ugu jeedaa wasiir calan gaar ah oo dad samaysteen dadkaas oo kuwa Soomaali ma aha tiri waxa weeyaan dad Soomaalidu wax ina ka bixin baad moodaa oo yiraahdaan Soomaali ma nihin okay Somaliland baa tabanayna okay waayo calankiina way bedeleen okay oo calan iyagu u gaar ah ayay samaysteen oo xataa calaamadaha Soomaalida lahayn sidaad ogtahayna waxay yiraahdeen we have offshooted from Somalia ka goosanay dawlad gaar ah noqonay oo la yiraahdo Somaliland taasi waxay keentay markaa in ay ka damqadaan dadka reer Awdal ee markaa de xorriyadooda haystay ka soo maqnaa wadankii in ay ka damqadaan oo yiraahdaan Soomaalinimadii baa meel laga dhacay waa in Soomaalinimadii ay jirtay way taasina waa taan soo hoynay maanta ee keenay calankii Awdal State aanu geynay Muqdisho iyo calankii Soomaalida in ummadda Soomaalida ugu ballan qaadnay inaan diyaarnahay inaan soo celino Soomaalinimadii Khaatume State baa yadna lagu dhawaaqay Khaatume State iyo Awdal State waxay ahaan jireen markii hore USP wax la yiraahdo lixdankii markii gobonnimadan qaadan haddii aan dib ugu noqdo arinta ay gobonnimadii markii 26 June ba xorriyada la siiyay gobolada waqooyi musiibada dhacday maxay ahayd markaa musiibada dhacday waxay ahayd isafgarawaa kan maanta jira ee dhibaatadu ka taagantay kiisi oo sidii wax loo qaybsanay baa lagu heshiin waayay marka hore oo waxa weey rag ba waxay yiraahdeen annaga majority-ga waxa weeyaan 90% annaga qaadanayno